الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الحمد لله إلهي بانكم هدينا صلاة إنك سوقي بلي جماعة runtii waan soo ziyaaranay uuna waxaan idhi bal sheekha iyo dadka musalliinta xaafadan degan intaan adoofin soo salaama haddana ma aragtaan inaan sii dardaaranno oo isbaraarujinno oo isku nasteexayno oo diinteenna macaan bayna faraysaa salaada duhur ee jamaca aan la soo tukanana dee allah inaga aqbalo camalka inaad la timaado waa dadaal inaad ku dadaasho camalka aad la timida in laga aqbalana iyaduna waa dadaal labaad oo kale weeyaan oo dadkii wan wanaagsanaaye naga horeeyey inay camalka saalixa la yimaadaan waxay kaga dadaal badnaayeen camalka ay la yimaadeen haddana in laga aqbalo ilaa camalkii aada ku tacabtay oo aanan laga aqbalin iyada laftigeega waa khasaaro weyn weeyaan cabdullaahi bn cumar bnu khadaab radia allahu canhuma ayaa zamankii dambe dadka muslimiintu aada ay usoo bateen dad badan oo cumar bnu khadaab aanan soo gaadhina ay wiilkiisii ibnu cumar ay soo gaadheen ayaa ammaantii bay markaa kala dul dhaceen ibnu cumar way yidhahdeen adigu nin caynkaasaa tahay aabbahaana nin caynkaasuu ahaa anta kada wa abuuka kaana kada wa kada markaasuu ku yidhi waxaa ammaanaad aniga igala dul dhacaysaan waxaan kaga farxad badnaan lahaa buu yidhi 2 rakacadood oon tukaday oo layga aqbalay oon ogaadoo la ii sheego ayaa waxaasoo dhanba aan kaga farxi lahaa buu yidhi kaga farxad badan lahaa camalka inaad la timaadaa waa dadaal oo ilaahay baa qofka waafajiya laakiin camalka in laga aqbalaana dadaal kale u baahan tahay ibraahim alkhaliil calayhi salaam iyo ismaaciil markay beytka ilaahay ay dhisayeen waxay ilaahay weydiisanayeen qabuuliyad waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu rabbana taqabal mina inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin waxay ku dadaalayeen camalka in laga aqbalo asbaabta camalka lagu aqbalana waxaa ka mid ah waa alla ka cabsiga inuu qofku noqdo qof ilaahay ka baqaya oo taqwo leh oo ikhlaas leh ikhlaaskuna waxa weeyaan waa seeska dhan ee diinteena islaamku ay ku dhisan tahay oo camalka saalixeed la timiday haddaad sadaqo dhiibayso haddaad soomayso haddaad qur-aan akhrinayso haddaad diin baranayso haddaad diida dadka aada barayso haddaad imaam tahay haddaad ma'muum tahay haddaad mufasir tahay haddaad daaci tahay camalkaaga in laga aqbalaa waxa u shardiya bay culimmadu yidhaahdaan waa ikhlaas iyo cilmiga ikhlaasku baa la yidhi waa qabuulu lcamal camalka in laga aqbala ikhlaaska u shardiya cilmiguna waa sixatu lcamal camalkaagu inuu sax noqdaa waxa u shardiya inaad camalkanaad qabanayso aqoon aad u yeelataa oo salaadii baa labadaa u baahan oo dikrigii baa labadaa u baahan oo ducadii baa labadaa u baahan oo soonkii baa labadaa u baahan oo xajkii baa labadaa u baahan markaad camalka saalixa aada qabanayso ilaahay dartii waa inaad u niyootaa waxaan ilaahay inaad ajar kaga helayso sixada camalkuna wuxuu camalku sax ku noqonayaa waa markaad culummada aad ku xidhan tahayd weydiinaysid kayfiyadda camalka hal camal oo saalixo ilaahay kaa aqbalay ayaa adduunka wax u dhigmaba la helaynba waa kii nabigeenu lahaa sal lla ly slam inama alacmaalu binniyaat camal walba waa niyadda waxuu ka unkamayo xadiidkaasi culummada musanifiinta kitaab kastay qoraan xadiiskaasay uga dhigaan bilow bidaayo uga dhigaan haddaanan camalkan ikhlaas aanan lagu qabanin ma soconayo xataa qusluljanaaba janaabada markaad ka meedhanaysid bay culimmadu ku leeyihiin arkaanteedu waa 2 anniya wa tacmiimu lbadani bilmaa inaad niyoota inaad qusluljanaaba aad ka meedhanaysid haddaanad niyoonin kaa meydhma maysa bay ku leeyihiin iyo jirhkaaga inaad biyaha ku camimtaa oo meel walba aada gaadhsiisaa
marka ikhlaas allah ina siiyo mukhlisiin allah inaga dhigo الناس موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملون والعاملون مغرورون إلا المخلصون والمخلصون على وجل حتى يعلموا ما يختم بهم عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه erayadii siibay ka mid ahayd dadka oo dhan way dhinsan yihiin ilaa culimada un baa ka nool buu yidhi dadka cilmiga sharciga yaqaana dadka un baa dad oo nool buu yidhi waxa kaloo dhan waa dad dhintay bay lamid yihiin buu yidhi culamaduna iyaga laftigooga cilmiga ayaa sakhraamiyey buu yidhi ilaa kuwa cilmiga ay barteen ku camal falaya mooyaane kuwa cilmiga ku camal fala ee diinta ku dhaqmana way degan yihiin buu iyaga laftigooga way degan yihiin oo camalka ayaa dagaya ila almukhlisuun kuwa mukhlisiinta camalka ilaahay u barax tirta mooyaane والمخلصون على وجل dadka mukhlisuuntuna cabsiba ilaahay ku caabudaan ilaa ay ogaanayaan khatimadoodu waxay ku dambeynayso inta hore oo dhan waxay ku jiraan cabsi bay ku jiraan nin caalim ahaayo saajidkiisa markaan ku tukado salaad kasta marka uu ka baxo ayuu ku ducaysan jiray allahumma inna nas'aluka husna al-khatima والشهادة عند الموت ونعوذ بك من سوء الخاتمة مركزان نين شيخان ويديو نين شيخ الدعاء دا سوكو بدنته وحول شان يا لحدن سنو أيوم دروس المساجد كمريا مالنا الدعاء دا كما تقبل ليدي ساقو كتابك البخاري هبين كيدا ميي وأرضي دي سينا كلب لما الترمذي إنه بلا بدون أسبوع الدنبه سنة دينا قريقي سكو صوص فجرك فضج على شقه الأيمن مركز سيدي سنة واحد بدنا عميدك تأوير جيف صدي ويكرر على نفتي شان يلحظة سنة وحو كدو عيسنا يي إله خاتمة أي وناجي إله خاتمة هنوها قاجي سوء الخاتمة والشيء كلي علماء الربانيين تو أي كبي قجرين ذاتك إلهي كحنا مركز إخلاصك أيام كود ذلك إن عمل كستون قبنا إنه أنا إخلاص قبان إخلاصكم عبادة كلية ما قالوا نبي صلى الله عليه وسلم أمدي حق الدين تنا وكدسي حق الدين ماذا وكدسي حق الدين تصدون نبي أمدي وكدسي عمل كستي قبنا يان إن إله درتي وقبتان وإله رديه سأيكدونان أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس وكيلا هيلها أنا عمل ليلة شريك إلا إيه شريك يلو عدك ليلة وداجيو وعدك لشريك أنا ليلة لا دقبا إلى هيري غنبا كاهيا وككاف توما هيبا إلى هيري نك عمل سوقبتي عمل كأدونك إنتو جوج عدك ليلة وداجيي إسقي شركي سوى نسكنا فابا إلى هيري بركة إخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا لما أمر دتك إلا وحال أمري إن عبادة إلهي جل وعلا أي أبر احترام حق سوى حق دينتي حق ضد ماذا النبي أمدي سأكدسه وحو ضد ماذا النبي أمدي أكدسه وحو ويان ولكن هداد وناق أدو سميني سد بديل إنه وناق أدو سميسي وناق لماذا إنه كو سميو هصودق ماشا يا واحد صودق تابو نبي يري نيكا وناق إني سميبو نبي يري واحد وقو أبال علسان أبال كيسا أتكو قدام بو نبي يري إن أدو دعيسان وترادان جزاك الله خير بديل هسوقن وحبانو قبتي وإنه وحلا مدى إيه قبتا دين تسلامكم ما قبتا تاس وحناسيي أبال بانكولا هي أبال كيغ وإنه سوء عليا مي دين تسلامكم وحي قبتا مركه هراد ولالك إحسان أدو سميني سدبا وإن أدو سميسا الله درتي إلهي درتي وحا أدو سمي هداد جنازة دي سراعة إلهي درتي أرع هداد دين آدم أهينيس إلهي درتي وأماهي هداد وحسينيس إلهي درتي أصي هداد حوقاك كتاغيرس إلهي درتي وكتاغير هداد علم بريس إلهي درتي أبر هداد عاونيس إلهي درتي أعاوي هداد قرب نغونيس إلهي درتي قرب نغو هداد تلاؤ مداد قبانيس وحو نبيكو صحابتي سكدا دعيي إلهي درتي إن دادك وشغيان دولد
dowla nabawiya la yidhaha buu nabigu madiinat almunawara uu ka dhisay dowla nabawiya sees wuxuu uga dhigay ikhlaas halkay adduunyada ay ku jirtaa maanta ay ka jirtaa ama ay dhici kartaa dowlad min madaxeegii ilaa mijaheegii kii qashinka dariiqa ka qaadayay uu leeyahay anu ilaahay dartii baan ummadda ugu shaqaynayo cidna mushqaayad ka dooni maayo ma jirtaa dowlad caynkaas baarkaasaad leedahin horumar baa la gaadho gaaladaa horumartay xagee horumar ka mareen laba maalmood hadday shaqaalahooga bishaarka dowladda ay ka jaraan shaqaaluhu waddanka dhanba saasay u rogayaan 10 maalmood hadday bishaarku ka dib dhaco way rogayaan waddanadooda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dowla islaamiya wuxuu dhisay min ka madaxa ilaa ka mijaha ee qashinka dariiqa ka qaadaya ka dhirta dariiqa ka baxday ka goynaya ka maaragtaane daweynaya oo yidhaahdo ilaahay dartiiba waxaa kugu qabtay iska soco ilaahay baan ajar ka doonayaa dowla nabawiya kontomeeyo sanay dowladdaasi sidaa ku dhisnayd ilaa khilaafadii mucaawiye laga gaadho baa la yidhi dowla nabawiya ilaa mucaawiye laga gaadho ama ninkii la odhan jiray marwan alximaar waxaan way ujeedaa mucaawiya ibn abi sufyaan laga gaadho halkaa dowla nabawiya isku ku joogsatay yidhahdaan culammadu dowla mulukiya markaa ka bilaabaysa mucaawiye laga bilaabo ilaa ninka la odhan jiray marwan alximaar daadna waxaa ku xigta dowla jabaruutiya oo iyaduna bilaami doonta khilaafadii dowlat lamawiya oo khilaafa dowla cabaasiya bilaami doonta dowla nabawiya nebigu waxau ku dhisay min amiirka mu'miniinta ee waddanka ugu sarreeya inuu aaminsan yahay shaqada uu ummadda u hayo inuu ilaahay dartii ugu shaqeeyo mooyaane reerkaaga iyo adigaa ku noolaanaya meesha ma soo dhiganba ka qashinka qaadayaa buu nebigu yidhi imaadat ladaa can ariiqi sadaqa dariiqa aada maraysaan dhibaatada taallay imaadat ladaa dhibta taallay oo laga qaado waa sadaqa buu nebigu yihi yaa ayuha annaas madiinuu nebigu soo gaadhay sal ly slam dadkii buu nebigu la hadlay hadalkuu kula hadlay ma taqaanaa yaa ayuha annaas afshu salaam waatcimu الطacaam wasilu اlarxaam wasalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bsalaam cuudu اlmariid faku اlcaani atcimu اljaa'ica waa sharcigii dowladda islaamka madiine ay ku dhisnayd talaanta faafiya masaakiinta cuntaysiya hal qof oo faqiiroo sidaa waa laga waayay magaalada madiina xadiiskaasaa lagu camal falaya halka maanta muslimiintu balaayin lacaga baananka ay ku haystaan qaar qaraabadoodana gaajo ugu dhimanayaan ama qaraabadiisu ay dawarsanayso magaalada madiina nin xagga dambe wax dhiganaya ma jirayn waxaa maanta soo gala way wada cunayeen sawiya waxaa laga waayay magaalada madiina ayadoo reer madiine xadiidka nebiga ay ku dhaqmayaan warkiina kii ka gaajoonaya cuntaysiiya ka niga xanuunsanna ziyaarta ka xidhanna buu nebigu yihi soo daaya waxay dhacday magaaladii madiine oo dhacday in qof miskiina laga waayo qof gaajoonaya in laga waayo waxbaa la wada cunayaa in qof maaragtaane hadduu qof ka xanuunsadana magaalada madiine 40,000 ee qoysee degan ay soo wada ziyaarato ninka magaalada madiine qariibku ee ku cusub markuu arko ninkan waxa khalqi soo buuqanaya waxa uu u malaynayay dadka magaalada madiine ku nool oo dhan inay qaraabadiisi wada yihiin qaraabanimo kuma soo ziyaaranayaane xadiidka nebi maxamed camal falay ku camal falayaan ayay magaalada madiine dadku ku soo buuqanayaan dadnimadoodii buu dhiso wuxuu ku dhisay ninka wanaag inii sameeya waxaad ugu abaalguddaan inaad ugu ducaysaan maxay jazaaka allah khayr jazaaka allah khayr waayo waxaad siinaysa adigu waa wax yar haddaad abaal celin lahayd ka soo qaad laakiin waxa ilaahay siinayaase yaa ka weyn waxay ka dhigan tahay ilaahay baan kuu baryey haye waxa ilaahay uu ku siinayana kamaa yaliiqu bijalaalihi buu kugu siinayaa marka ikhlaaska allah ina siiyo ikhlaaska iyo iimaanku waa mataana bay culimmadu leeyihiin iimaanku markuu biro ikhlaasku wuu biraa iimaanku markuu naaqusmana ikhlaasku wuu naaqusmaa tow amaan allah ina siiyo ikhlaas haddaan yeelano nolosheena o dhan baa isbedeli ikhlaasku waa maxay waa waxa camalkaaga lagu aqbalayo camal haddii lagaa aqbalo noloshaada o dhan baa toosi nin caalim oo rabbaaniya ayaa ardaydiisii ka mid abaa biyo yidhi isoo qaad biyo
biyihii buu u soo qaado biyihii baa ka soo daadaatay sidaa uga daadaatay ardayna ma ahayna nin iska weyn buu hayo ardayda waaweyna saasuu eego wuxuu ku yidhi ilaa imika salaadaadii may hagaagin buu ka yidhi adiga waa la yaabay biyaha ka soo daadaadanaya iyo salaadiisa maxaa isku keenaa lagu yidhi sheekh wuxuu yidhi salaadiisu hadday maqbuulo noqon lahayd oo ilaahay aqbali lahaa xubnihiisoo dhan baa noqon lahaa buuhi kuwo degan salaaddu hadday hagaagto noloshoo dhan baa inuu hagaagaya ogaada marka salaada ahaan hagaajisano oo cilmigeegana culimmada ahaan weydiino yaanan xishoon ikhlaaskeegana allah ina siiyo insha allah dhahada allah inoo dembi dhaaf intaasaan kusoo gabagabayn waa waqti dahira weeyaan ilaahay dembigeena ha dhaaf dembiga waalidiinteena allah ha dhaaf maralkeena allah ha shaafiyo